soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa si fool xun loogu soo dhaweeyay caasimadda Yuhuudda ee Israa'iil ee Tel Aviv haddaba muxuu halkaasi ka doonay maxaase ka jiro in mashruucyo waaweyn oo markaasi uu kala soo saxiixday maamulka taagta daran ee Israa'iil ku haya faahfaahintaasi oo dhameystiran sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa gabi ahaan wuxuu isugu yeeray saraakiishii ugu sirsareysay ee ciidamada geesiyaasha ee madaniga haddaba maxay tahay ama waqtigan ku soo beegay in ugaaska isugu yeero saraakiishaasi isagoo war weyn iyo waliba sidoo kale xogo waaweyn uu la wadaagi doono ku haya xogahaasi waliba sidoo kale macluumaad qarsoon oo aan warbaahinta markaasi aan waxba ka ogeyn ayaan rabaa saaxiibayaal inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka carooday tallaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo ku tagay caasimadda Yuhuudda ee Israa'iil ee Tel Aviv haddaba muxuu ka yiri madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud qoraal noocee ah ayuu soo saaray waan kula wadaagi doonaa sidee ayuu se uga falceliyay arinkii uu sameeyay muuqaal kooban oo baraha bulshada qabsaday ayaan saaxiibayaal sidoo kale halkan idin kula wadaagi doonaa iyadoo markaasi dhabarka laga dharbaaxayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aan idin qarinayo saaxiibayaal ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horreysay fadlan kanalka rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siina share garay saaxiibadaada la wadaag mahadsanid ka mid noqo saaxiibada cusub ee gaarsiin lahaa 10,000 oo subscribe isbedel weyn ayaa wili ii muuqanaya dhammaantiin waxaan idinkaga codsanayaa inaad muuqaalka la gareysaan like-ta waxay ka mid tahay muuqaalka iyo meel dheer gaarsiisaa haddii aad ka xun tahay waxay maamulka Soomaaliland ay sameynayaan muuqaalkan la garay si ay u gaaraan aanu tusno in waxa uu sameeyay Ciro ay ahaayeen wax qalada inuu markaasi u sujuudo maartay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu haddaba muuqaalkan ayaan saaxiibayaal kugu la wadaagi doonaa soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa si fool xun loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv madaxweynaha Soomaaliland ayaa safar saacado qaato oo hawada ah waxa uu markaasi uga gactamay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isagoona gaaray caasimadda wadanka Israa'iil ee Tel Aviv isagoona halkaasi kulamo gaar ah ula qaatay madaxda ugu sareysay dalka dhawaan ayay ahayd markii Benjamin Netanyahu uu sheegay in aqoonsi rasmi ah ay u aqoonsadeen dalka madax bannaan Soomaaliya maamulka Soomaaliland ay arintaasi ka dhigtay mid ay si weyn Soomaaliya oo idil ay ugu falceliyeen arintaas tan iyo markii aqoonsiga ee maamulka Soomaaliland ee awoodda ama taagta daran waxa isbedeen in ay wadanka madax bannaan Soomaaliya ay yihiin balse tan iyo xilligaas waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay muddo dheer 30 sano ay raadinayeen aqoonsiga ay ka raadinayso Tel Aviv ma yaale ee waxa uu yaalaa caasimadda Muqdisho waa madaxweynaha jamhuuriyadda maanta haddii warqad uu saxiixo uu ogolaado Soomaaliland markaas oo kaliya ayaa go'i karto inta ka sokeysana cid kala goon karto oo madax bannaanadeedana Soomaaliya ma jirto balse magaalada Tel Aviv ayuu gaaray madaxweyne Ciro isagoona halkaasi kulan uu la qaatay waliba mashruucyo waaweyn ayuu la saxiixday Israa'iil ayaa qorsheynayso in saldhig weyn oo military ay ku yeelato gudaha Hargeysa sidoo kalena waxa ay doonayaan in ay ciidamadeeda Israa'iil la geeyo gudaha Soomaaliland si ay qayb uga noqdaan nabad ilaalinta ay Soomaaliland ay u joogaan Soomaaliland waxay in badan ay raadinaysay ictiraaf dawlado badan oo ay tageen ayaa ka biidiiday in ay sidaasi loogu aqoonsado balse maamul aan la aqoonsanin oo taag daran oo yar oo Israa'iil la yiraahdo ayaa sheegay in ay ogolaadeen ayna qaabileen ayna tahay wadanka madax bannaan Soomaaliya balse laakiin taa waa riyo oo wili taagan aysan rumayn karin Israa'iil kaliya ay rumayn karto Soomaaliya inteeda kale ah balse madaxweynaha ayaana markaasi wadooyinka magaaladaasi lagu soo dhaweeyay isagoona kadibna loo galbiyay gudaha ama aqalka lagu maamulo dalka Israa'iil iyadoona halkaasi ay markii ay tageen oo kadibna
mashaariic waliba sidoo kale waxyaabo kala duwan oo in dhul military halkaasi ku yeelanayaan in qayb lixaad leh ay maaragtay ka qaadanayso sidoo kalena dowlado kalena ay kala shaqeynayaan inay aqoonsadaan maamulka Somaliland balse laakiin xaaladda ayaa sii dari doonta oo dowladda Soomaaliyana waxa looga fadhiyaa jawaabaha hadda ay bixiyeen kuwa kale oo ka kulul oo ay maaragtay ay xadgudub ay ku hayso Israel madax banaanida iyo waliba sidoo kale mid dowlad Soomaaliya Israel horey waxa markaasi safiirkooda u yimaaday markaas safiir u soo dirtay Somaliland iyadoona dhowr maalmood oo ku sugnaa dib ugu laabtay iyadoona si toos Hargeysa diyaaradda markaa ugu degtay haddaba dowladda Soomaaliya ayaana looga fadhiyaa in jawaabo noocan oo kala ah mid markaasi ka duwan ay ka bixiyaan arinta ku aadan dhul boobka iyo waliba sidoo kale Israel oo wado kala qaybinta Soomaaliyeed kala dhanka kalena hadii aan fiiriyana ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa gabi ahaanba waxa uu isugu yeeray saraakiishii ugu sirsarisay ciidamada geesiyaashiga ee madaniga ee beesha Ciise ugaaska ayaa maalmihii dambe waxa uu waday in isku shaandheyn iyo waliba sidoo kale in saraakiisha ciidamada ay dardargeliyaan howlgallada iyo waliba weerarada iyo duulaanada kala duwan ee iyaga dhankooda lagu soo qaadayo inay iska caabin badan ay ka sameeyaan ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim ayaa wada isku shaandheyn iyo waliba sidoo kale in ciidamada la isku dhafo saraakiil badanna qaybo kala duwan isbedelo markaasi lagu sameeyo ku dhawaad 12 askari waa dhowr iyo maartay 30 askar oo saraakiil ah ayuu ugaaska beesha Ciise isugu yeeray isagoona uu kala hadlay xaaladda guud iyo in ay kala warqaataan saraakiisha kadibna loo kala bedelo halkii ay ku kala sugnaayeen kuwaas oo ay maartay loo kala bedelayo ciidamada kuwaas oo hogaamintooda iyo waliba sidoo kale dardalgelinta howlgallada ay kula jiraan maleeshiyada beesha Samaroon iyo ciidamada maamulka Somaliland balse ugaaska ayaa sheegay in gabi ahaanba aan la ogolaan doonin in goobaha qaar ay ciidamadu ay maartay xaalad military ugu soo bixeen mooyaane inaanay meelo kala duwan aan laga soo bixin waxyaabo ugu waaweyn ee ciidamadaas laga hadlay ay tahay in ciidamada qof kasta oo sarkaal ah inuu ka warqabo ciidamadiisa hadii ay dhacdo dhimasho iyo hadii ay dhacdo dhaawacyo inuu ka warhayo oo ciidamada maartay la socdo ugaaska ayaa sidoo kale la dardaarmay saraakiishan kuna booriyay shaqadii wanaagsaneed ay qabteen oo kuna amaanay inay sii wadaan howlgallada ay wadaan iyo waliba sidoo kale sida ay dalkooda iyo dadkooda iyo deegaanadooda ay uga dhaarteen ay uga dhabeeyaan taasna ay tahay mid lagu amaanayo dhowrkii bilood u dambeeyay waxa ay sameeyeen howlgallo guuleystay iyo kuwa kale oo la isku dayay in iyagu lagu burburiyo ama duulaano kala duwan loo qaado hortaga cajiib ay markaas sameeyeen sidoo kale waxa uu markaasi ku dhiirgeliyay saraakiisha howlgallada qaar oo ay qaab aan la filaynin ay iyagu ay u sameeyeen xaaladaas gobolka Awdal iyo Salil maalmihii dambe waxa laga dareemayay degnaan kuwaas oo ay u muuqato mid markaasi laga adkaaday maleeshiyada beesha Samaroon oo isku maartay is aruursi iyo waliba sidoo kale in ay Somaliland ay gacan markaasi weydiisteen oo madaxweynaha Somaliland oo dhawaan ay ahayd inuu Boorama aado balse markii dambe safarkiisu u bedeshay inuu ka dego magaalada Tel Aviv ee caasimadda wadankaasi Israel ugaaska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Somaliland ay wadaan iyagana laftigooda hub aruursi ay doonayaan in gabi ahaanba dhulka ay leedahay maamulka Goban State ee beesha Ciise in gabi ahaanba halkaasi lagu burburiyo balse waxa uu sheegay ugaaska inaysan aqbali doonin aysan qaadin doonin in deegaanadooda iyo dadkooda la laayo aysan aqbali doonin arintan ayaana naqanaysa mid cirka isku sii shareerayso dhowrkii maalmood ee u dambeysay oo xaaladda markaasi soo tarisay qodobkan ugu dambeeyana hadii aan fiiriyano madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka carooday talaabadii foosh xumeed uu ku dhaqaaqay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro kadib markii uu gaaray caasimadda Tel Aviv ee dalkaasi Israel madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa si carale uga hadlay arinka ku aadan in Israel ay wali ay ka daba shaqeynayso Soomaaliyeed kala ugaaska guud ee waa aan raadi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Israel ay wado kalqoobida Soomaaliyeed kala aysan ka aqbali doonin iyadoona ay markaasi warmurtiyada ay soo saareen waxaan aad u ambaareynaa falka Qur'aan ay wado Israel
iyadoona dhowrkii maalmood ay isku dayday in siyaasadda Soomaaliya ay ku soo milanto iyadoona maamulka Somaliland ay aqoonsi beenaada ay sheegto inay ku aqoonsanayso in dalka madax bannaan Soomaaliya yihiin balse waxa uu sheegay madaxweynuhu in aysan waxaasi wax la aqbali karin aysan ahayn ay noqon doonto in awood military ay u adeegsan doonaan haddii Israel ay isku daydo in ay maamulka Somaliland ay maartay ay garb istaag buuxda ay u muujiso inkastoo hadda walow oo madaxweynaha uu ku nuuxsaday in aysan marnaba ogolaan doonin oo aysan ahayn in aqoonsiga ay raadinayso Israel ee Tel Aviv ay ka raadinayso aysan ahayn mid markaasi wax kama jiraan ah oo ay tahay Soomaali inteeda kala ah iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ama madaxda dalka inay saxiixaan oo ay tahay in kaliya ay aqoonsi ku heli karaan haddii sidaas aqoonsi u fudaan lahaa 30 sano kuma aysan qaateen ayuu yiri madaxweynaha sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka waantoowaan oo madaxweyne Ciro uu maartay uu ku waantoow haddii ay sidaas ay dhacdana in awood military loo adeegsan doono oo madaxweynaha Ciro la soo qabto lagana soo dejiyo garoonka diyaaradaha aadan cadde international waa haddii markaasi laga fiirsan waayo loona baaqan waayo waa haddii ay ku socdaan sida ay hadda wax ku sii socdaan daawadi haddii dalkan la soo gaartay runtii waxa qof walba wanaagsan waxaan asla kaaga codsanaya inaad kanalkan soo maartay subscribe garisid muuqaalkan la galay siin shar galay saaxiibada la wadaago ku meesantiin daawashada muuqaalkan meesariin